telefishanka caalamiga ee Som News ayaa waraysi la yeeshay mid ka mid ah farsamayaqaanada makiimada gacanta ku toola degmada Arabsiyo kaasi oo sameeyay agabka lagaga gaashaanta cudurka safmareenka ah ee COVID-19 aniga magacayga leeyahay Maxamed Axmed Maxamed oo sameeyay baalaha waqtiga waxaan bulshada u sheegayaa inay ka faa'iideystaan halka u soo doontaan ayalka soo doontaan waan haynaa wixii loo baahdo in alla intii loo baahdo waan haynaa waxaan u sheegaynaa inaanu kaga hortagno cudurkan dunida aafeeyay corona aan kaga hortagno waanigan sameynaya waanigan xidhan marka waxa weeyaan in laga faa'iideysto halka loo soo qofka macnaha isagoo size kaga xidhan inuu shaqadiisa iska wato meel kastana أو كتير كرو حيران كرو شغلي زي سقوطة وأنا وحي وسألت عفات كل سو جديسي وأنا مهم وكورتك وإذا كان عفات الدنيا ده في أركا وحلاي حلقة على صدنته والله هرشت دقمة عربسيو محمد عبد كور أنت اللي جايد مالتي صو صار كرتا مالتي دور بقول ما صو صار كرنا قيمة شلون إذا كانوا برشة هل قلنا يان خسين دونا يلا لين تلا بعدنا ولا هيل كرايا أنا قلت chance كفاية سنة وحلاي برشة حلقة على صوت دونتو يعني ميل كلا الله دونا لين حلو حلو بعدنا ما سمعنا مالتي دور بقول ما صار صار كرنا ده أنت كلام فعيا سيدا عن أنا قلت شقينا يا أنا حيران هاي أي الله حيران يا عاديات إن لقى فايدته وين عاديات بونك سي وأنا قرشف يعني وأنا فكرت بونك سنو هذا في عندي بشدة فايدة إنك بشدة كلا قيم قاطو بدبادة حنونك COVID-19 درين نوعية بيكو قلنيسة عاديات درين كيقول في عيني هاي ما دام بشدة كلا قيم قاطنا يو أون هل كانوا يسمي أون ميل كلا الله دونني aad bay u fiican tahay anigana aad bay farxadii maamulku inaanay meel kale u doonan inay yimaadaan iga qaadaan dadkana uga faa'iideeyaan ay siiyaan waa Muuse Xuseen Xasan Som News gobolka Gabiley